Hadaladii ka soo yeedhayay ee dowladda federaalka Itoobiya ee ahayd in ciidamo masaari ah ee gebi ahaanba la keenin gudaha dalka ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii jawaab kulul ka bixisay dowladda Masar taasoo ah inay keeni doonaan ciidamo masaari ah Itoobiyana aysan ka hor istaagi karin ee gudaha Soomaaliya inay soo galaan ciidamo masaari ah si ay qayb ugu noqdaan sugidda ammaanka ee Soomaaliya. dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale Masar ayay isku haysaa muddooyinkii dambe in gudaha Soomaaliya ay soo galaan ciidamo masaari ah oo ay ka qayb qaadanayaan isla markaana ka socdaan midowda Afrika taasoo gebi ahaanba ay diidan tahay ee dowladda federaalka Itoobiya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaase ka hadleen maadaama iyagu xor ay u tahay Soomaaliya inay dhulkeeda ay keenato ciidan kasta oo iyaga ay doonayso si ay ugu qayb qaataan sugidda ammaanka ee Soomaaliya. kadib markii saraakiil masaariya lagu arkay ee degmada Belataxaawo ee gobolka Gedo waxaa badatay ama badhalatay cabsi xoogan ee dowladda federaalka Itoobiya oo ah in ciidamada masaarida si rasmi ay u imaan doonaan ee gudaha dalka ee Soomaaliya. ciidamada masaarida ee la sheegay in lagu tababarayo gudaha Masar ayaa ah lugta ugu horeysa ee soo gaadhaysa gudaha dalka ee Soomaaliya ay ku kooban yihiin ama cadadkoodu uu gaarayo ilaa iyo 10,000 oo askari oo masaari ah kuwaas oo agab kasta ay u baahan yihiin taageerada militariga ay qayb ay ka tahay isla markaana dhammaan oo ay bixinaysaba dowladda Japan taasoo cabsi xoogan iyo carar sidoo kale ay ku abuurtay ee dowladda federaalka Itoobiya waxay isweydiinaysaa sababta Japan ay u bixinayso dhammaan taageerada qalabka militariga oo wax kasta ciidanka ay u baahan yihiin oo ay siinayso ciidamada lagu tababarayo gudaha dalka Masar kuwaasoo loo qorsheeyay in la keeno gudaha dalka Soomaaliya. masaarida ay la wareegi doonaan ammaanka gobolka Gedo halkaas ay ku sugi doonaan gudaha dalka Soomaaliya. taa haddii ay xaqiiqoodo dowladda federaalka Soomaaliya waxay halkaas ka ilaalin doontaa xuduudeeda isla markaana Masar halkaa ay fadhin doonto. dhinaca kalena Itoobiya maadaama ay xarash uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya halkaas aysan ka soo gudbi karin haddii dagaal labada dal uu dhaco sidii sanadkii la soo dhaafayba oo dalka ku sigtay inuu dagaal foolka fool oo la galo ee dalka Itoobiya. heshiiskii xilliga ay wada gaadheen ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Masar ayaa wali sii socda isagoo sidoo kalena meesha goobta aan laga saarinba heshiiskaasi kadib markii dowladda Turkiga ay kaalin mugle ay ka qaadatay isku keenidii Soomaaliya iyo Itoobiya. Itoobiya waxay cabsida ugu weyn ay ka qabtay Masar ayaa ah in maadaama dalkaasi dagaal qarniyo uu ka dhaxeeyo oo u dhaxeeyo webiga Niil ee dalalkaasi haddii dagaal foolka fool uu dhaco ay Masar u fududaan doonto inay weerarto gudaha dalka Itoobiya iyadoo ay ka gali doonto xuduudka Soomaaliya. sidoo kale cabsida ay qabto ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa ah in xuduudka Soomaaliya laga soo weeraro taasina ay tahay cabsida ugu weyn sidoo kalena ay ilaalinayso halkaasi oo ay diidan tahayba in Masar ay soo gasho gudaha dalka Soomaaliya. istiraatiijiyad siyaasadeed ayaa la isku haysaa Masar iyo sidoo kale Itoobiya. Itoobiya waxay isku daysay marar badan inay kala hadasho dowladda Soomaaliya inaanu u baahnayn ciidamo masaari ah maadaama dalka qayb ka mid ah ciidamada Itoobiya ay joogaan sidoo kalena Itoobiya ay diyaar u tahay bedelka ciidamada masaarida imaan doonaan in ammaankeeda ay sugto. balse Itoobiya dalkan waxay ka qayb qaadatay ciidamada nabad ilaalinta ee midowda Afrika dhowr sanadood iyadoo sidoo kalena wax natiijo la ay ku soo kornay taa bedelkeedana dalkeeda halkaani ay ka ilaashanaysay. dowladda Soomaaliya go'aankeeda ugu dambeeya ayaa ah in dalka ay soo gaadhaan ciidamo masaari ah isla markaana qayb ay ka qaataan ammaanka. masaaridu aad ayay u xiiseeyaan inay soo gaadhaan gudaha dalka Soomaaliya iyagoo se u imaanaya nabad ilaalin taa bedelkeedana sidoo kale faa'iidada ugu jirta ay tahay in Itoobiya ay cabsi uga abuurto sidoo kalena Itoobiya wadnaha farta ay ku hayso inta ciidamo masaari ah ay joogaan gudaha dalka Soomaaliya dibna ay ula laaban doonto qorshaheeda webiga Niil ay ka lahayd sidoo kalena oo isku hayseen dowladda Masar. baarlamaanka dalka Masar ayaa xildhibaan ku doodaya in dowladda Masar
aysan awoodeeda dib miyay u daciiftay mise maxaase ku dhacay ayayse ku hadalhayaan guud ahaan dalka Masar. Itoobiya oo ugu hanjabaysa in ciidamo Masaariya aysan soo gaadhin gudaha dalka Soomaaliya. Haddii taa ay dhacdana Itoobiya waxay marar badan madaxda Soomaalida u sheegtay in awaaqib xumo ay kala kulmi doonaan. Masar waxay jawaab kulul ay ka bixisay oo sheegtay in dalkan ay soo gaadhsiin doonaan ciidamo Masaariya. Itoobiya waxa ay wadana aysan noqonaynin gebi ahaanba wax soconaya. xildhibaan Masaariya ayaa sheegay Jimcihii in go'aanka Qaahira ay ciidamo ugu dirayso Soomaaliya kuwaas oo ka tirsan howlgalka xasilinta ee Midowga Afrika uu yahay mid sharci ah oo ay si buuxda u taageersan yihiin Muqdisho iyo Midowga Afrikaba, isagoo meesha ka saaray diidmada Itoobiya ee uu ku tilmaamay isku day xiisad lagu abuurayo. Mustafa Bakri oo ka tirsan baarlamaanka Masar ayaa u sheegay wariyaasha in dirista ciidamada ay ka timid codsi ka yimid ee dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshaha golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika, taasoo siinaysa sharciyad buuxa. Wuxuu sheegay in dhaleecaynta Itoobiya ay tahay mid aan la aqbali karin oo keliya looga gol leeyahay in lagu kiciyo xasilooni daro. Hadallada ayaa daba socda war ay dowladda Soomaaliya soo saartay 26 August kaasoo lagu sheegay in ciidamo Masaariya ay ku biiri doonaan howlgalka taageerada iyo xasilinta ee Midowga Afrika ee Soomaaliya OSOM toddobaadyada soo socda. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cutubyadaasi ay tababar ku qaateen magaalada Qaahira isla markaana la dejin doono ee gobolada Hiiraan, Shabeellaha Hoose iyo Gedo, halkaasi oo ciidamada Soomaaliya iyo kuwa xulafada la ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Ciidamada Masar waxay taageero toos ah siin doonaan ololaha Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxa la dagaalamayo Al-Shabaab iyo sidoo kale Al-Qaacida